waan idin salaamay saaxiibayaal mar kale filimkeenu wuxuu ku bilaabanayaa labada aabe iyo wiilkiisa waxay ku jireen baabuur ay ku xirnaayeen wada cariir ah iyagoo isqabqabsanaya si lama filaama gaarigii hor yaal ayaa laga furiyay albaabka baabuurkooda ayaa si xoog loo garaacay kuwa baabuurka baxsanaya ayaa dib ugu soo laabtay baabuurka iyagoo cabsi la soo galay qofka weerarka qaaday bini'aadam xayawaan wuxuu yiri hadda lama cadeyn lugihiis waxay la mid ahaayeen xoolaha halka gacantiisa mid ay ahayd baal booliska ayaa qabtay makhluuqan la yaabka leh waxaan ogaanay in cudur uu ka dilaac magaalada taas awgeed dadka isku bedelay xayawaan dawladda waxay raadinaysaa daawo cudurkaas lagu daaweeyo Francis ninkii gaari ku arkeen xaaskiisa ayaa sidoo kale ila darnay cudurkaas waxay ku jirtay isbitaalka Francis wuxuu u doonay inuu isaga daryeelo xaaskiisa laakiin xaaladeedii markay ka sii dartay dhaqaatiirtii ayaa kula taliyay in isbitaalka sii joogto markuu u tago si uu boqdo waxaan aragnaa wajigeeda kaasoo si buuxda u yahay mid xoolaha ah Francis markuu wiilkiisa ku yiraahdo bax hooyada la kulmo wuxuu ku jawaab maxaan ka faa'iidaa inaan la kulmo xitaa haddii aan la hadlo min fahmayso Francis wuxuu ku leeyahay ku farxi doontaa markaad aragto tagteelku Francis ka shaqeeyo dadka meesha jooga waxay u sheegeen in isbitaal cusub oo adag laga dhisay meel u dhow isbitaalkaas waa mid si gaar ah looga dhisay si looga hayo dadka isku bedela xayawaanada markii habeen la gaaray dadka cudurka qaba ayaa loo raray isbitaalka cusub laakiin qalalaasa darteed baska ayaa ku dhacay biyaha dad badan oo isbedel way ku dhintay qaarna waa la waayay habeenkaas wiilka Francis wuxuu ka baqay muuqaal la yaab leh kaasoo ka soo muuqda daaqada gurigooda laakiin markuu mar kale eegay cidna meesha ma joogin wuxuu u mooday in indhihiisa ay qiyaameen markuu Francis maqalay shilka dhacay wuxuu aaday meesha si uu ugu warhelo xaaskiisa arin la yaab leh ayaa dhacay sarkaalka booliska ayaa u sheegay in xaaskiisa aan lagu darin dadka liiska dhintay ama nool waxa ay ahayd mid la waayay kadib waxaan aragnaa wiilka Francis oo iskuulka carruurta la ciyaara jiirjiiso kooxdii la tartamay ayaa laga adkaaday daqiiqado gudahood taasoo muujinaysa in wiilku uu xoog badan yahay si uu ma garanay sababta dhaxdaas cidiisa mid ayaa go'ay markuu guriga ku soo socday saaxiibkiisii ayaa istaajiyay wuxuuna kala hadlay xafladda jimcaha xaflad uusan doonin inuu tago sabab u gaar ah awgeed guriga yimid waxaan aragnaa in lafta dhabarkiisa ay soo baxday wuxuu ka baqay inuu soo bedelo xayawaan cabsi awgeed wuxuu bilaabay inuu qabeysto laakiin ma wasakh dhaqmi karta dhinaca kale Francis wuxuu la kulmay sargaalkii booliska la hadlay gudaha suuqa weyn sargaalkaas oo hore u sheegay in xaaskiisa la waayay wuxuu weli leeyahay xaaskaada meel laga helin magaceedu kuma jirto dadka liiska dhintay dadka badbaaday si fiican ay u daryeelayna markii wada hadlayeen si lama filaan qaylo baa ka dhacday suuqa markay dadka isu tageen si ay u ogaadaan wax dhacay nin baa yiri waxaan arkay qof la yaab leh dadka oo dhan way kala careen laakiin Francis wuu horumarisay uu arko qofkaas wuxuu u maleeyay in xaaskiisa ay noqon karto laakiin wuxuu arkay in eeg Octopus markuu arkay sarkaalka booliska oo Francis la socda wuxuu isku dayay inuu carro wuxuu ku tuuray waxyaabo badan oo gacanta ugu jiray sarkaalka laakiin sarkaalka booliska wuxuu mid aad u fiijigan wuxuuna qabtay ninkaasi markii la qabtay Francis wuxuu arkay gabar yar oo meesha taagan gabadhii waxay isu bedeshay shimbir markay ka baxeen suuqa weyn sarkaalka booliska ayaa Francis weydiisay adiga yaad alaabtan badan u iibisay Francis wuxuu ku yiri waxba ma aha waxaan u socdaalayaa deegaanka duurka marka ayaan u baahan doonaa laakiin run ahaantii wuxuu alaabtii u sidii si uu raadiyo xaaskiisa wuxuu aaminsan in kadib shilkii dhacay xaaskiisa ay ku qasban tahay inuu ku dhumato keenta wuxuu dhar isigii wiilkiisa ka mid ah ku dhijiyay geedaha keenta sababta hadda urka xaaskiisa aad bay u xogan tahay wuxuu aaminsanaa in ay urud doonto dharka ay heli doonto hadda dawladdu waxay amar ku bixisay in dadka cudurka qaba aan lagu hayn karin guryaha laakiin Francis wuxuu doonay inuu iska ilaaliyo arintaas wuxuu doonay in uu isaga daryeelo xaaskiisa waana sababta ugu baahnaan dhamaan alaabaha markuu guriga yimid wuxuu wiilkiisa u sheegay maanta laba qof oo eeg xayawaan ayaa lagu arkay suuqa weyn waxaa jira dad badan oo lama shil kadib wuxuu yiri waxaan u maleynayaa in hooyada iyaduna ka mid tahay xawarwalan jimcaha ayaan bixi doonaa si aan keenta ugu raadino laakiin wiilka Francis wuxuu hadda qorsheynaya inuu aado xafladda jimcaha sababta gabar ayaa maanta ku casuuntay xafladdaas Francis isagoo aan ku faraxsanin ayuu ogolaaday inuu tago wuxuu ku yiri xasuusno 8 fiidnimo ka hor waa inaad guriga joogtaa dadka oo dhan waxay xafladdaas ku raaxaysanayeen laakiin silama filaan wiilka Francis madax ayaa wareeray gabar ayaa aragtay xaaladiisa waxayna siisay kiniini laakiin halkuu kiniiniga cun lahaa wuxuu u sidii ay kadibna wuxuu u dhaqaaqay keenta isagoo aan cabsanayn subaxii markuu indhaha kala qaaday wuxuu ku jiray keenta wuxuu dareemay wax in afkaaga xirmeen wuxuu si degdeg ah u soo noqday guriga bishmiis aad bay isu bedeleen midibkiisa sidoo kale uu isbedelay markuu aabiis soo galay musqusha si uu arko wuxuu si dhaqsi leh ku xiray baak musqusha wuxuuna gacantiisa geliyay cunay si uu soo saaro waxa kaasoo ahaa bahal wiilkii had wuu fahmay in isagu isku bedelayo xayawaan hadda wuxuu la baxay aabiis iyagooda si ay u raadeen hooyadiis wiilka Francis wuxuu u qeylinayay isagoo hooyadiis u yeeraya laakiin markay cidna waayeen way daaleen wayna saaxdeen habeenkii dhexdiisa iyagooda ayaa si lama filaan u bilaabay inuu waciyo
wuxuuna u orday geed uu qof daanyeer u eg uu dusha kaga fadhiyay markii uu tagay si uu eegaan sikkidiisa qofka u eg gorgorka ayaa weeray wiilka Francis kahor inta uusan dilin wiilka Francis markuu arkay bishimiis ayuu garanay in wiilka isaga la mid yahay wuxuu isu bedelay xayawaan sidaas darteed ma dhaawici doono si kastaba qofkii gorgorka oo ka uu dhaawacay wiilka Francis markaas Francis wuxuu u qaaday isbitaalka laakiin wiilka ma doonin inuu aado sababtoo ah marka halkaas la tago qof walba wuxuu ogaanaya in uu isku bedelay xayawaan laakiin intii jidka ku jireen waxay la kulmeen sarkaalkii booliska oo Francis weydiiyay hadii wiilkiisa dhib qabo Francis wuxuu ku yiri may ayaa qaniini oo kaliya sarkaalka ayaa tiri wax kastaba haatee waa in isbitaalka la geeyo waxay labadooda la aaday isbitaalka qaatiirtu ciidamada ayaa halkaas ku dabooshay dhaawaca sarkaalka booliska waxay Francis u sheegtay in dawladda ciidanka u keentay si ay xaaladooda xakamayso ugu dambeyn Francis iyo wiilkiisa waxay ku noqdeen guriga markii guriga tageen wiilkii Francis si la yaab leh u fujiyay suufkii dhaawac lagu daboolay wuxuuna bilaabay inuu dhaawac isla fafo xitaa markuu uu sii togo marka ay jiiro ka hadlaan shaybaarkii wuxuu u qoylanaya si aad ah jiirku u aamsiyay sida inuu fahmo wax jiirku sheegayaan kadib wiilka Francis wuxuu dibad uga baxay dhanka webiga wuxuuna cunay kulun ciiriin oo ka helay webiga haween ayaa aragtay waxaas oo dhan kahor intaysan wax qabin isiga ayaa ka cararay meesha keenta dhexdeeda mar kale ayuu kula kulmay ninkii gorgorka oo isku day inuu duulwuuna ku guuleystay si weyn wuxuu siiyay kulun ciiriin oo qabtay wuxuu la hadlay ninkii gorgorka ahaa wuxuuna sheegay aniga waxaan isku bedelayaa shimbir waxaan rabaa inaan duulo laakiin marar badan waan dhacaa arintaas aad bay i dhaawacdaa ma ogtay meel si fudud aan ku baran karan duulista ayaa jirta wiilkii wuxuu yiri sababta aan u galaan wuxuuna u qaaday meel baali ah wuxuu ka saaray laamaha badan ee geedka hareeraha baaliga ah wuxuuna u sheegay in meeshan si xir ugu duuli karo xitaa hadii aad dhacdo waxaad ku dhicaysaa biyaha ma dhaawici doontid halka Francis maqaayadii ku sugnaa si lama filaama qof xayawaan og ayaa soo weeraray weerkaas wuxuu ku dhacay Francis laftiisa Francis wuxuu arkay in qof kale xayawaan og meeshaas uu joogay kaasoo arkay xayawaanka weyn kadibna cararay waxaa laga yaabaa in qofkaas ahayd xaaskiisa isagu ka fikiray arintaas markaas ayuu xayawaankii weeraray bilaabay inuu si xoogan u qeyliyo kahor intaysan macaamiisha gale argagixin makiilihii maqaayadda ayaa xayawaankii ku yiri aamusay la yaab xayawaankii hogaasamaya milkiilaha xayawaanka wuxuu gacmihiisa ku lahaa silsilado taasoo kor istaagtay inuu dib ugu laabto keenta wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca kale macaamiisha daqiiqado yar kadib booliska waxay u yimaadeen inay qabtaan xayawaankaas Francis isaguna wuxuu la baxay sarkaalka si ugu raadiyo xaaskiisa keenta laakiin halkaas cidna kama helin balse wuxuu helay baaskiilka wiilkiisa markii guriga ku noqday oo uu tagay saxanka gacmaha lagu dhaqdo wuxuu ku helay cidiyo yaala saxanka ku jira cidiyaas waxaa jiray wiilka Francis wuxuuna ku tuuray saxanka Francis wuu fahmay in wiilkiisa isku bedelayo hadda xayawaan waxaana la toosay in mid ka mid ilkiisa hadda fasalkaaga dhacay taasoo keentay in ardayda ku qoslaan markaas ayuu ka carar fasalka isagoo u tagay ninkii gorgorka u ekaa wuxuu la hadlay wuxuuna daawaday tababarkiisa duulista wuxuuna u jeediyay laabtiisa nambaraha leh oo la duubay la yaab aabihiisa Francis ayaa ku yiri itus gacmahaaga markuu wiilkii diiday inuu tuso gacmihiisa hadda Francis wuxuu hubay in wiilkiisa isku bedelayo xayawaan wiilka Francis sidoo kale uu ku baxsaday laakiin Francis wuu qabtay wiilku wuxuu ku qoylinayay aabihiis fadlan hay qawan aabiga tag laakiin aabihi wuxuu yiri maya waan ogahay wax kugu dhacaya adigu waxaad isku bedelaysaa xayawaan markaad dhameystirto wili waxaad ahaan doontaa wiilkeygii kaliya isha wax isbedel kugu socda si aan u fahmo nooc xayawaanka ay isu bedelayso wiilka Francis wuxuu yiri hadda waxaa maqlayaa dhawaaqyo fafog oo cad wuxuuna weydiiyay aabihiis cidiyaha la yaabka leh Francis ayaa weydiiyay saaxiibada ma ogyihiin waxaas wiilkii ayaa ku jawaabay cidna ma oga haddana aabihiis wuxuu weydiinayaa aabihiis waa amase wax yar markaas ayuu yiri hadda maya laakiin mustaqbalka ma hubo maalintii xigtay xaflad ayaa ka socotay maqaayadda Francis cidiis aad bay u weynaayeen aabihiis ayaa canaantay wuxuuna yiri maxaad cidiya u jiri weysay wiilka aad buu ugu xumaaday canaanta aabihiisa laakiin dhabahantii Francis wuxuu isku day in wiilkiisa ka badbaadiyo indhaha dadka kale wuxuuna maqas ku qabtay qoortiisa wuxuuna ku hajabay inuu ka jari doono cindiyaha kadib markuu cidiyaha jaray waxaan aragnaa wiilka Francis oo la kulmay saaxiibtiis labadooda aad bay isku dhawaadeen xilligaas gabadha ayaa taabatay lafta dhabarka ee wiilka Francis waxayna tiri waan ogahay dhammaan isbedelka kugu socda laakiin ima jeedinayso wax dhib ah dhinaca kale saaxiibkood fasalka ayaa isagana ogaaday runta ku saabsan wiilka Francis wuxuuna u yimid wiilka Francis isagoo wata qalab la yaab leh kaasoo bini'aadamka waxba u sheegin codkiisa laakiin aad ayuu u dhibaa xayawaanka wiilka wuxuu si xun u dhibay wiilka Francis wuxuuna yiri waxaan ogaa runta tani waqti dheer wiilka Francis uu dul qaadan waayo wuxuuna carad darteed ku dhuftay wiilka wajiga calaamado ayaa ka soo muuqday dhammaan waxyaalahaas awgeed xaaladdu way ka sii dartay booliskii ciidanka ayaa hadda ka daba tagay keenta halkaas waxaa ka caawiyay ninkii u eegaa gorgorka kaasoo hore uga caawiyay duulista markuu duulay wiilka wuxuu u geeyay meel keena booliskii ciidanka waxay gaareen meeshaas wiilka Francis wuxuu u gaaray dhanka kale ee webiga laakiin gaadiidkii kuma socon karin biyaha markaas ciidamada rasaas ayay fureen ninkii gorgorka oo ekaa
oo ahaa saaxiibka cusub ee wiilka Francis wuxuu ku dhintay weerarkaas. Wiilka Francis si aad ayuu u qabalay inay tahay meeshan gurigiisa, wuxuuna cunayaa miro wuxuuna ku qabtaa webiga. Markii uu ka soo baxay calaamad la yaab leh ayaa ka soo muuqda dhabarkiisa, sida inuu si degdeg ah isku beddelay jirkiisa oo dhan. Wiilka Francis markuu soconayo wuxuu gaarayaa meel ka mid ah keenta, halkaas ay ku nool yihiin dad badan oo eeg xayawaanka sidiisa kale. Halkaas ayuu sidoo kale kula kulmay hooyadiis oo garatay urkiisa, ma aysan u hadli karin sida bini'aadamka, laakiin si isdaba joogta ay ugu diyaarsan wiilkeeda good, sida inay leedahay tani waa meel ammaan ah. Email wuxuu arkay in dadka qaar ay isku beddelayaan abeesooyin, qaarna daayeerno, midna doofaar, iyo ilmo isbeddelaya oo noqday biimaal. Dhammaan halkaas waxay ku nool yihiin si nabad ah ka hor inta aysan military ku tuurin meesha qiiq. Taasi waxay keentay jahawareer. Ciidanka ayaa adeegsaday qalabka gaar ah ee sameynaya dhawaaqyo si weyn u dhibaya xayawaanka. Dhawaaqyadaas waxay sidoo kale aad u dhibayeen wiilka Francis, waxaana gacanta ku dhigay military-ga, laakiin gabadhii isu beddeshay biimaalka waxay isku qarisay geed waxayna ka baxsatay booliska. Waxay la tageen wiilka Francis magaalada, halkaas uu aabihiis kula kulmay booliska oo u sheegay kan inuu yahay wiilkiisa, kaasoo habeenkii u baxay keenta si aan sabab lahayn. wiilka Francis maadaama uu weli ka bini'aadam, booliska wax shika kama aysan qabin, waxay siiyeen warqad uu saxiixo. Markaas wiilka ma saxiix karin, wuxuu ku qeyliyay caro darteed. Markaasii booliska sheekay inuu isbedelayo xayawaan, waxay isku dayeen inay qabtaan, laakiin Francis ayaa garaacay booliska, wuxuuna saxiixay warqadii la siiyay. Kadibna wiilkaas wuxuu kala baxay meesha. Taliyaha kaasoo Francis caawinaya tan iyo filimka bilowgiisa, wuxuu hadda ogaa in wax qaldan yihiin. Taasi waa sababta ciidamada military-ga hadda u daba socdaan. Markuu taas arkay wiilka Francis aad buu u baqay, wuxuuna weydiiyay aabihiis haddii ay qabtaan oo ay geeyay xarunta caafimaadka ma igu soo booqan doontaa. Francis wuxuu ku yiri ma suurtagal ma inay ku qabtaan, anigu waan kula jiraa. Halkaas iyo wiilka Francis sidoo kale u sheegay waxaan ku arkay hooyaday keenta. Francis aad buu u farxay markuu taas maqlay, wuxuu si degdeg ah ugu tagay keenta isaga gaarigiisa dhigay bartamaha keenta, wuxuuna wiilkiisa ku yiri tag oo xor noqo keenta dhexdeeda, halkan ayaad ku farxi doontaa iyadoo aan waqti lumin. Francis indhiisa ilmadii ayaa ka soo muuqatay ilmo farxad leh, maxaa yeelay wuxuu wiilkiisa ka badbaadiyay cadaadiska dawladda. Dhammaan waxaas kadib sheekada filimka halkaas ayay ku dhamaanaysaa.